maanta milyuun rooble si laygaga guuleysto ma noqonayso cunug yar oo saqiira oo aniga aan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحسيتو سنوغا داونيسان حقيقي سيدا وانيغو دكتور رويلا كسو دوادا عاوة iyo muuqaal kale oo cusub haddii ay tahay markii ugu horeeyay oo aad channelka aragto subscribe-ka noo saar boqolkii kun wax yar ayaan nooga dhiman si aan u gaarno maalmaha soo socdo hadda horena la joogtana thank you ayaan ku leenahay sii share garay muuqaalka kan waxaan rabnaa inaan cawada tan la hadalno nin la yiraahdo mukhtaar nin la yiraahdo oo waxa jira gabar ayadana la yiraahdo milyuun rooble ii sheeg maxaa la yiraahdaa maalmo ka hor ay ku kala tageen baraha bulshada dhexdooda dadkaas ayaa muddo waxay ahaayeen dad lamaana ah TikTok-gana aad u wada isticmaala laakiin waxaa soo baxday arrin fadeexa ah sida milyuun rooble ay afkeeda ka qiratay sawir waxaa jira ayada oo naas nuujinaysa cunuga ay u dhashay ninka odaga ah si public ah loo keenay baraha bulshada lagu daadiyay milyuun rooble ayaa waxay leedahay sawirkan mukhtaar ayaa ka dambeeyay oo iga qaaday mukhtaar iyo milyuun arrintooda labada bilo ugu dambeeyay TikTok-ga aad bay u haysteen ayagoo isku jawaabaya ayadoo leh odayga farxaday waxa u mahayo asagoo leh waa ay daalan tahay arrimo caay ah oo aflagaada ah bay labada dhinac ay isku marinayeen laakiin waxa la rabay ninka ragga ah in uu dulqaad sameeyo oo u tanaasulaa la rabay laakiin ma aysan dhicin anigu marka waxaan leeyahay horta kow markaan u fiirsho rag ahaan markaan fiirsho milyuun rooble waa hooyo Soomaaliyeed waa gabar masaakiina waxay ahayd ninka odaga ah haddii xataa qalad oo ka tabanayo inuu ka aamuso haddii xataa waxyaabaha ay ka sheegayso oo dhibsado waxay ahayd inuu ka aamuso hadduu ka aamusi lahaana meeshaan maysa gaari lahayn xaaladdu gabadha hadda xaaladeedu waxay ku jirtaa halis bay ku jirtaa gabadhi habeen alla keeno maalin alla keeno leefkii gabadhi ku jirtaa way iska ooynaysaa waxay leedahay hal badbaadiyo waxay leedahay dhibaato ninka ii geystay dadkii oo dhanaa mataqaana wada ooynaya gabdhihii Soomaaliyeed iyo dadkay caqliga lahaa ee meesha joog kulli wax dhacay waa ka wada xun yihiin anagu laftigayagu aad baan uga xunnahay wax gabadha masaakiinta ah qabsaday wax aan taageersanahay am raali ka ahna maaha laakiin waxa la rabay milyuun rooble walaashay waxa ku nooshahay wadan sharci leh wadan sharci leh degata asaguna sidoo kale wadan sharci leh oo degan yahay sharcigana qafka weyn adduunka ma jiro dadku sharciga ku nool yihiin sharcigu qafka weyn ma jiro qaf kasta oo mataqaanaa wadamada sharcigu ka jira ku nool wuxuu mataqaanaa ku nool yahay waa sharci sharcigana haddii aad kaashato cadaalad baa helaysaa cadaalad darro ma kugu dhacayso milyuun rooble waxaan leeyahay maadaama wadan sharci la aad ku nooshahay social media iyo TikTok-ga dadku inay kugu farxaan jabkaaga ku farxaan ilintaada ku farxaan lagugu maadaysta mooye wax cadaalad ah bara bulsho kama helaysid hal qof oo kuu damqanaya ma jiro qof kastaba waxa weeye fiyuuskiisa kii ku wadana fiyuuskiisa kugu fiirsanayaa qofkii mataqaanaa qof kastaba danihiisa qaaska kugu fiirsanayaa ani marka waxaan ku dhihi lahaa cadaaladda iyo mataqaanaa aad dadka social media jooga weydiisanaysid sharciga wadanka aad ku nooshahay cadaalad weydiiso anigu laftigeyga waa ka xumaa waxa kugu dhacay hooyo Soomaaliyeed baa tahay gabar Soomaaliyeed baa tahay in nin aad kala tagteen ama nin odagaaga ahaa oo saa kuu galo arrintaas arrin ceeb ah weeye waa ka soo horjeednaa sababtoo ah ragga Soomaaliyeed laftigooda sharaf darro u soo jiidaya ninka kan kaligii maaha ragga Soomaaliyeed sharaf darro xataa u soo jiidaya gabar aad kala tagteen walaalow gacli inaad ka sheekayso maxaa kuu kalifi kara ma danaysat ma meelaha ka gashid weligeed baa la kala tagi jiray weligeed baa mataqaanaa la isguursan jiray waxay waxyaabahan qoyska ah ee maalmahan baraha bulshada kusoo badanaya dadki dulqaad ma leh dumarka dulqaad ma leh ragga dulqaad ma leh dadka dulqaad ma leh ummadda Soomaaliyeed kulli dulqaadku waa ka tagay dulqaadkii ka tagay damiirkii baa dadka ka tagay waxa weeye wax qof walba xoro iskaga hadlaa dadku wax kala cishanaya ma lahan حتى الشرع dadku hadii xataa sharci adeegsan lahaayeen ama sharci ku noolaa lahaayeen waxyaabaha ma soo badalheen gabadha hooyada ah ee habeen maalin ooynaysa
qof kasta oo Soomaaliya way dhibaysaa qof kasta oo Soomaaliya gabadha ha u kaco ha caawiyo si sharci ah ku caawiyo gabadha masaakiinta ah ee maalin walba ooynaysa ninka ka oysiinaya sharciga hala tigsado ha hadday qaldan tahana sharciga ayada asiinaya wixii ay ku qaldan tahay ama wixii ay ku saxan tahay asagana hadduu ka qaldan yahay ama uu saxan yahay wuxuu ku saxay wuxuu ku qaldan yahay sharciga kala saarayo war sharciga ku aamina meel sharci laha joogtiin dhul sharci laha ku nooshiin sharciga ku kala baxa oo maalin kasta baroorta iyo mataqaanaa cayda iyo sawirada iyo fiidiyoda iska soo bandhigaysaan dad lamaana aatiine caruur baa meesha joogtee yaasan example xun noqon oo wiilka yar oo ka dhaxay laftigiisa yaan mustaqbalka looga ciyaarin waxa meey dhaqanki Soomaaliyeed meey guys aawo dhaqanki ninka odaga ah nin weyn weeye ma dhaheeno aqli yara meesha dhigtay nin weyn weeye laakiin wax ku qasbi kara arrimaha noocaan anagu ma garan karno aad baan horta uga xunnahay maliyun rooble waxa ku qabsado walaashay waa ka xunnahay ilaahay ha ku gargaaro salaada iyo mataqaanaa cibaadada iska baso insha Allah faatixada iska akhriso way ku hagaagi doontaa waxa ku qabsadana wax aad u xun weeye waana ka xunnahay waana dareensanahay inta aqliga u saaxiibka inta damiirka ku jirto inta bilaadnimada ay ku jirto waa garabkaaga weeye waa lagu garab taagan yahay walaashay hore u soco laakiin iska dhaaf social media markastaba aad keenayso problemadan iyo waxaan jira sababtoo ah adiga maskaxiin ku dilaysaa marka u dambayso aad baa idin salaamaya intaan muuqaalka kulmi doono waxaan kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo